kulankan oo ka dhacay xarunta Villa Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida saraakiil kala socotay talisyada xoogga dalka booliiska nabad sugidda waaxda socdaalka ee jinsiyadaha waxaana saraakiishan la weydiiyay su'aalo la xiriiray dil magaalada Muqdisho lagu geystay Allaha u naxariistay xildhibaan Yuusuf Dirar Cabdi 23 bishan mudane Mahad Cabdalla Cabad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka hadlay furtaankii kulankan ayaa tilmaamay in muhiimad gaar ah ay leeyihiin shirarka caynkan ee gudiyada su'aalaha taagan ku weydiinayaan hay'adaha dawladda. xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Cabdullaahi Cabdi Wehliye oo ka jawaabay su'aalaha la weydiiyay ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka dalka ay gacanta ku hayaan rag la xiriirinayo inay ka dambeeyaan falkaasi dilka ah ee loo geystay mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. kulankan ayaa qayb ka ah kulamo ay gudiyada joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya su'aalo ku weydiinayaan hay'adaha kala duwan ee dawladda iyadoo kulamada noocan ah ee muujinaya isla xisaabtankana uu qayb ka yahay hirgelinta nidaamka dawliga ah. Cabdi Fataax Daahir Jaytay raadiyaha